الحمد لله. مقعي هو حسن حاجة حنفي حاجة عبد السلام. وإذا كلا هالله مقالة مقدشو ودهان شعبك مسلمين عالمك عالمك ورجنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بيد عاصمات ومتجبود في عام labadii bishii Agoosto 2014 ayaa Kenya sidoonkooda gacanta ay ku dhigeen iyagoo igeeyay markii ugu horeysay meel la yiraahdo Bangani Police Station oo xaafadda Islii ay laga maamulo ama degmada Kamakuja la yiraahdo magaalada Nairobi. Bangani Police Station saddex habeen ayaan bariyay. Habeenkii waxa iga daba yimid reerka iyaga oo waalidiintayada ayaa iga daba yimaado halka deganaa. ninkii OCS-ka ama taliyaha saldhiggu waxay ka meel dhigeen inuu isii daayo. hooyadu waxay filanaysay in wiilkeeda lagu dari doono laakiin maynan dhicin. wuxuu weydiiyey su'aalo dhowr ah. xilligaas ka hor waxaa la weeraray meel la yidhaahdo Ingagatonia oo injaahiintu weerareen injaahiinta Soomaaliya dhigta iyo meel la yidhaahdo Lamu oo isla habeenkii ku xigay ay weerareen injaahiintu. waxaa uu weydiiyey inaan ka qayb galay dagaalkii Ingagatonia. waxaan ku wareey meel la dhahayo in Kenya ay ku taalo saxaafadda baan ka maqlay. meel ay iga jirtana ma helo mana aqaana mana ka qayb galin. wuxuu weydiiyey Lamu weerarkii ka dhacay inaan ka qayb galay in kale. waxaan ku wareey Lamu ayaduna waa la mid ma aqaan meesha ay ku taalo laakiin waan garanayaa in ay tahay dhul Kenya ah. dabeeto wuxuu weydiiyey Garissa weerar ka dhacay. waxaan ku yiri Garissa safar aan waqooyi bari Kenya ugu sii socdo ama ugu soo socdo mooye Soomaalitaankeeda oo shaqdhaxa ahayd iyo sii socodkeeda duhur ahayd mooye in kale maana soo marin ama kubadan koob shaaxta kama cabin. dabeeto waxa uu igu yiri inta badan ka soo diray sida CID-ga ama qorada Criminal Investigation Department leeyahay qaybta baarista dambiyada waaweyn. waxay ku qoreen sidaa inaan meelaha soo dhan ka soo darasay haddii aynan dhicinna waxa weeyaan maxaan ku raadayay sheegay waa lagu xalinayaa. beri subaxna maamadii waxa uu ku yiri aniga gurigaada ku keenayo baabuurkayga ayaan soo saaraya oo xataa baabuur police ma soo saaray baabuurkayga khaaska ah ayaan soo saaraya. hooyadu way ku qanci weysay. dabeeto waxay ka dalbatay in caawa 10 saac hadii la gaaro xitaa ana ayaa ku keenayo marka caawa yuusu wiilku xabsiga baryin laakiin wuu ka diiday oo waxa uu ku yiri ma suuroobeyso in hadda aan ku siiyo nimanka keensaday waa niman noocaas oo CID ah waa in ayaga aan caawa u tagaa ka soo dhaadhiciya deesmada wiilkan ayaa ku keenin doona maalinkaas sabti ayay ahayd. dabeeto uu ka sii tagay meeshii ayaan nagu sii xiraanay maxaabiistii kalaba wadanka u galatay Kenyan ahaa oo meel kala duwan oo magaalada laga soo kala qabtay. markii taas dhacday waa laga waday xarun ATBU ay leeyihiin ayaa leeyahay oo Kenya National Hospital isbitaalka qaranka Kenya oo ka soo horjeeda. dabeeto markii la geeyay baaris ayaa meeshii sharciga dib loo baaray sharciga uu saxsanaaday. wixii dambiyada la waayay magaca la raadinayo Xasan Xaaji Xanafiin oo yahay la sheegay in aan la sheegay in muddo ayaa meesha lagu waayay 5 bilood marba xabsi qarsoon la geynayay. bishii December inta maalinkii 6 ahayd ayaa la yimid wasiirkii amniga qaranka waxay u yeereen xiriirka Kenya dowladda ayaa yimid taliye booliska in la yiraahdo Tuurere oo hay'adda marsugida Soomaaliya haysto in la yahay Cabdiraxmaan Bayle oo ay wasaaradda arrimaha dibadda mas'uulka ah in la yiraahdo Maxamed Cali Nuur America oo asana safiir ka ahaan jiray dalka Kenya. waxa iyo ninka la yiraahdo Nicholas Kay oo hadda la bedelo goonta midowga u qaabilsan Soomaaliya. dabeeto iyo qoladii CID ay booliska David Kimayo la dhahay waxay isla qaateen in la wareejiyo Soomaaliya. dowladnimadii oo hadda hay'ad ayaa la sheegay in Soomaaliya laga wareeji doono 6 saac ama 12 iyo 30 daqiiqo oo habeenimo ayaana hurday qolkii aan ku jiro kaliya ahaa la igu yimid. waa la kaashay ninkii meesha joogay oo furahayna wuxuu wargelisay in alaabteeda ay xidho haddii keenana ay yihiin ragga haddana irabo meel kalena ay ii wareejinayaan. waana soo tagnay
waxaan ku dhahay baabuurku waa laysoo indhexir waa laysoo gacmo xiray nin Soomaali ah oo sirdoonka Kenya ka mid ah oo reer Gaarisa ah ayaa baabuurka waday nin kale oo asaguna la yiraahdo Alex oo la socda sayna uu jiray laba baabuur oo yar ayaa lagu soo qaaday sidii ayaa markaa garoonka lagu keenay saldhig booliis garoonka yaala lagu wareejiyay saldhigii ayaa iga soo sagaalkii iyo bar laga soo waday diyaarad khaas ayaa la soo saaray 11 iyo 10 daqiiqo waxaan ka soo degay jida caalamiga magaalada Muqdisho waxaa la geeyay sarta Abarqadiisa oo xarun u ahayd hay'adda shahaadada waxaa la geliyay godka hoose Abarqadiisa oo markaas laga bixiyay shacabka daahir aways oo ku xirnay meesha ayaan ku jiray 12 Juun ayaa la wareejiyay xabsiga madaxtooyada ku yaalo meeshaas ayaa ku nasabay labadii bishan March ama bisha saddexaad 2016 kana waxaa la soo raadiyay xabsiga dhexe magaalada Muqdisho meeshaas ayaan joogay waxaa la yiraahdaa gobolka iyadoo halkaas ay ka soo hormuuqdeen in Xasan Cali Nuur Shuute oo darajada koowaad ee maxkamadda ciidamada qaranka mas'uulka ah iyo laba nin oo la socotay halka ayaa lagu maxkamadeeyay dambiyo dhowr ayaa lagu eedeeyay waxaa dambiyahaas ugu waaweynaa inaan xarakad al-shabaab mujaahidiin ka mid ahaa go-aankii maxkamadda ay ku dhawaaqdeen waxay dib toogashaa jeeba ay igula soo ordeen jeebadii ayaa maxaan ku raahdaa ii sheeg lagu xidhay sidii ayaa lagu soo raadiyay xabsiga dhexe magaalada Muqdisho